أبو وعيري الله نحرسته وعوداي هذا لا درس كويس بس haddii ay nool yihiin oo ay nafta qabaan bal hana la soo hadashiyaan codadkooda aan baarka ku qabowsano niyad ku baar qabowsanay waxaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn loo hadlayay dhalinyarada Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka Eritrea kuwaas oo laga qayb galiyay dagaal ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya waxaana arrinkaas uu xanuun badan ku abuuray waalidiin Soomaaliyeed waalidiin fara badan ayaa dareemaya culays iyo xanuun badan waxayna laayihiin dhalinyaro ay dhaleen oo tababar askarnimo loo qaaday isla markaana aan lagu hayn nolol iyo geeri Aaba Ali Jaamac waxa uu sheegay in wiilkiisa Cabdisamed Ali Jaamac markii tababarka loo qaadayay oo telefoon ka soo wacay kuna wargeliyay inuu ka duulay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde galab 9 saac la qaaday 9 saac 20 daqiiqo ka dhiman 8 saac iyo 40 daqiiqadood ayuu wiilkii soo wacay aabbo wuxuu yiri Allah naxariiste wuxuu dhahay هذا لا درس كويس بس أبا هذا لا درس كويس بس وأنا لقاضي ما يشيء ينفو أسيب حتى كم ورقبه ما كورقبيه بأسيب نفتكيس أنا مركب واحد ويستي دولة على قاضي الله ده سيدا هذا ما أرتي مقطع واحد كذا أنا أجيني كتير يعني دولة قدر مركب وطن كان وطن عرب يعجب إسكوا يستواه أنا وحنا ليه هدي مسؤولين ما أجرته أو معمول أجره أو دولة ما أجرته وحنا قاويل كي عن أديبي وقرن إنه استاجه وإيه جيريو ذي ميت كيسن اللي إيه مكينه أنت وحق ليه هي حقها إلا السيو وعندي منها هي وأسكن نقولها بلدين أسكن نقولها هو فاطمة معلم عبد الله وحي إن مدة أي بعد جو بيسوي كذا أحمد إبراهيم جمعالي أو إسن أرن مدة سنة إلى حبلة waxayna sheegtay in dawladdu ay beenisay in dhalinyarada Soomaaliyeed dagaal la galiyay balse waxay ka codsatay dawladda Soomaaliya in carruurtooda ay la xiriiriyaan maadaama dawladdu ay niyad wanaag u sameysay waxaan ka rabnaa carruurtii haddii ay nool yihiin oo nafta qabaan carruurtiina way nooshaha dhib ma qabto warbixin saasay xala ku dhiibay haddii ay nool yihiin oo nafta qabaan bal hana la soo hadashiyaan codadkooda aan baarka ku qabowsano niyad ku baar qabowsanay carruurtu waa jirkaaga laga soo jarayo ma aha dheeldeel jirkaaga meel kamid ah hadii inta bir lagu qaata qalin lagu geysto xanuun aad iyo aad ha dareeme hilibkaaga qofka laga soo gooyana waa la mid carruurtayna dhowr mid waa maqalnay carruurtiina waa baahan tahay waa maqalnay Eritrea loo Ethiopia la siiyay oo waa la dagaal galiyay waa maqalnay waa suuragal dawladda ninkii bariga madax naqdaa cadow waa leeyahay waa suuragal inay xeehatood ay ka gudbiyeen waa dhicin kartaa dhici ma kartaa kuma dhahay laakiin sida ay noola wadaageen dareenkayna hanoo muujiyano ayagu waa awoodaan mid hanoo sameeyana carruurtayna codkooda hana maqashiyaan aan ku qanacno xildhibaan iyo mas'uuliyadooda midna ma lahan balse Aaba Ali Jaamac waxa uu shacabka dawladda ka codsaday in lagu garab istaago si meedka wiilkiisa uu heli lahaa madaxda dawladda waxa uu baaqaa anoo hadaan beelan ahay xildhibaan la mali oo ii doodo xildhibaan waxa شعبك الصومالي قالها شعبك أقل سريع أقل هالصبا هي الدولة فرماجة ليش يدين أوي بيه إن إمارتي منانت أول هاي دلكي صار ومسوا علينا منانت أول هاي وكسوا الدولة wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube oo xalay warbaahinta dawladda ka hadlaya beeniyay wararkan la xiriira in dhalinyarada Soomaaliyeed laga qayb galiyay dagaal ka dhacay waqooyiga Itoobiya waxaan halkan dawlad ahaan ka cadeynaynaa wararka ku tiri kuteenta ah ee been abuurka ah ee mala awaalka ah ee laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dibadda ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin Korneyl Cabdullaahi Cali Macow oo kamid ahaa saraakiishii hore ee dawladda ayaa dib ku tilmaamay hadii ay sax noqoto in reer Soomaaliyeed laga qayb galiyay dagaalka ka dhacay dalka Itoobiya wiilal yar oo aan maartay tababar maartay aan xoog leh aan qabin in maartay buuraleyda oo muxuu ahay Tigray ay ka howlgalaan ama ay dagaal ay ka galaan dagaal aan maartay aan banaanayn arrintaas hadii ay jirto waxa waaye waa dambi weyn oo ay ku dhaceen wiilashaasi dadkii muxuu ahay recruit gareeyay oo shaqada qoray
iyo muxuu ahay iyo madaxtooyadaba mas-uuliyadda ayay qaadanaysaa. mas-uuliyiin hore siyaasiyiin iyo musharaxiinta madaxweynaha qaarkood ayaa si kor looga hadlay arrinkan culayska badan ku abuurtay waalidiinta Soomaaliyeed waxayna aad dusha u saareen madaxda dowladda Soomaaliya. maxamed xuseen axmed, RTN, Muqdisho. mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac.